sidee tahay inaad u wajahdid maadaama shaxdaada ay ka mid yihiin ciyaaryahano aan ciyaari doonin. kulamada ugu muhiimsan ee aad ku tashan kartid aad haddii transfergaaga hal ama ka badan haysatid ama wildcard baad rabtid inaad ciyaartid, inkastoo aniga aan ku talinaynin inaad wildcard aad ciyaartid maadaama sanadka uu hadda qaybtiisa ugu dambeysay ee ugu muhiimsaneed ee hadda dhiman tahay oo xilli ciyaareedka laga yaabo kooxo badan in ay sidaan oo kale ay dhacdo in la baajiyo kulamo badan in la baajiyo amaba inay dhici karto. waxaan kugula talinayaa inaadan wildcard hadda isticmaalin ee aad istaraatiijiyad kale ama qaab kale oo aad jibaarada uga faa'iideysan kartid aad isticmaashid. kulamada hadda la isdhihi karo waxbaa laga keeni karaa waa kulanka Manchester United iyo Burnley oo Manchester United waxaa ka mid ah ciyaaryahanada ku tashan kartid. waxaa ka mid ah Fernandes oo sanadkanba aad u qaab ciyaareedkiisa aad u wanaagsanaa oo maamulayaal badan ama tababarayaal badan maadaama aad tahay tababare marba haddii aad shax aad ku galayso todobaad kasta tababarayaal badan ay ku tashanayaan. waxaa ka mid ah Fernandes, waxaa ka mid ah Martial oo maalmahan gadaal kala soo qabsanayo inkastoo xilli ciyaareed qaybtiisa hore uusan aad u ciyaarin. waxaan isleeyahay ninkaas waa nin lagu tashan karo kulankaas Burnley. sidoo kale waxaa ku tashan kartaa ninka lagu magacaabo Rashford oo aan wada ognahay kulankii Wolves iyo Manchester United in daqiiqadii ugu dambeysay uu goolka guusha u dhaliyay. marka kulamadaas ayaa ka mid ah. waxaa kaloo kulanka oo asna lagu tashan kara ka mid ah Manchester City iyo Brighton. Manchester City waan ognahay waxay kasoo badisay Chelsea oo 3-0 ay kaga soo badisay. ciyaaryahan Kevin De Bruyne wuxuu sameeyay caawin iyo gool kulankii ugu dambeeyay. sidaa darteed kooxda Brighton oo ayadaba xogaa xaaladeeda aysan wanaagsan inkastoo qaab ciyaareed wanaagsan ay soo bandhigtay kulankii ugu dambeeyay 3-3 ee la gashay Wolves, haddana kooxda ay wajahaysa ayaa Man City. sidaa darteed Manchester City ayaa muhiimada leh oo aan isleeyahay ciyaaryahanno muhiim ayaa ku jiro. ciyaaryahanka hadda aan isleeyahay waa laga faa'iidi karaa oo la filaanka ah waa Bernardo Silva. qayb kula xilli ciyaareedkan qaybihiisa hore wuxuu ku jiray bench ku jiray oo maadaama Mahrez uu ahaa qaab ciyaareedkiisa u wanaagsanaa, laakiin Mahrez hoos u dhac ayaa ku yimaaday qiimihiisa xataa hoos buu u dhacay. laakiin waxaan isleeyahay Bernardo Silva ayaa sameyn karo bandhig la yaab leh, sidaasna uga faa'iideyn kara tababarayaasha usbuuc ciyaareedka blank game week haysta fursad ay ku bedelaan ciyaarahooda ama waa shaxdooda ay xooga bedelaan. Kevin De Bruyne waa lama taabtaan waaye, mar walbana waa lagu tashan karaa asaga. Sterling ayaa ka mid ah. Sterling wuxuu sameeyay caawin. waxaa ka mid ah ninkii la Foden oo asna mid ka mid ah ciyaaryahanada qadka dhexe ugu raqiisan haddana u ciyaara Manchester City oo doorkiisa kusoo bilaabashada ay aad u badan tahay inuu kusoo bilaaban karo yani fursadiisa inuu kusoo bilowdo aad u badan tahay maadaama kulankii hore ee Chelsea uu kusoo bilowday oo qaab ciyaareed wanaagsan uu sameeyay. dhinaca daafaca markaan ahno Manchester City waxay haystaa ciyaaryahanno daafaca oo aan raqiis ahayn laakiin haddana lagu tashan karo. waxaa ka mid ah Diaz oo ilaa hadda wuxuu sameeyay markii loo barbar dhigo ciyaarihii Manchester City sanadkii hore waxaa la dhihi jiray difaaceeda aad buu u jilicsan yahay, laakiin Diaz marka la keenay waxaad moodaa in isbedel oo dhinaca daafaca u imaaday oo dhibco badan ay sameynayaan. ninka la ciyaaray oo Stones asna waa 4.9 waaye qiimihiisa, laakiin waxaan isleeyahay waa lagu tashan karaa dhinaca daafaca. Cancelo ayaa ka mid ah ragga lagu tashan karo oo wax keeni karo. saddexdaas difaac ayaana ugu muhiimsan. aan gudubno kulanka kale Burnley iyo Aston Villa iyo Spurs. Spurs waa toddobaadkii la soo dhaafay way qaab ciyaareedka ugu wanaagsanaa. kabtanadii uu dadkii kabtanka saartay Harry Kane ama Son waxay ku faa'iideen haddii ay labadooda haysteen way ku faa'iideen. waxaa kaloo meeshaas aan isleeyahay waa laga faa'iidi karaa ciyaaryahan uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo Bergwijn oo foomkiisa hoos buu u yara dhacay, laakiin dadaalkiisa iyo tuuriyada uu ku sameynayo goolka aad bay u badan tahay. sidaa darteed waxaan isleeyahay Bergwijn waa differential amaba yani qof oo yani si fiican wax u keeni kara laakiin aan laga filaynin oo la yaab leh. dhinaca Aston Villa inkastoo daafacyada Tottenham ay aad u adag yihiin, laakiin weerarka Aston Villa uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Grealish wuxuu sameyn karaa isbedel wanaagsan ayuu sameyn karaa.
Grealish mar walba waa lagu tashtaa oo caawin iyo maadaama weerarada kooxda Aston Villa ay yihiin kuwo orod badan ninka lagu magacaabo Traore oo asna qiimihiisu uu aad u yaryahay haddana samayn karo isbedel. Tomkins ayaa ka mid ah weerarada Aston Villa kaalin muhiim ay kaga jiraan horyaalka sidaa darteed maadaama ay haystaan goolkiibaha ugu badbaadinta badan amaba ugu shabaq ilaashashada badan oo Martinez ayagana ninkaas ka mid ah dadka lagu tashan karo. Daafacyada oo kale waxay keenayaan sanadkan haddii ay waxba dhicin oo kulankan ay waxba la iskaga badin waxaa laga yaabaa in ever oo kale ku dhamaato labada dhinacba laakiin qaab ciyaareedka Harry Kane iyo Son labadoodaba lama dheelsan karo. Kulanka kale ee aan isleeyahay wax badan ayaa laga fili karaa waa Arsenal iyo Crystal Palace. Waxaan ognahay toddobaadyadii lasoo dhaafay 3 kulan oo xiriir inay badiyeen Arsenal oo ciyaaryahanada aan qiimahooduna aad u yaryahay oo ilaa 5 aan gaarsiineen haddana bandhigyada cajiibka sameeyay waxaa ka mid ah Saka oo lagu tashan karo. Waxaa kaloo ka mid ah ninka lagu magacaabo Martinelli oo kulankii hore ee Chelsea aan ciyaarin West Brom laakiin laga yaabo inuu kulanka lagu soo bilaabo haddii uusan wax ku gaarin ama ku dhaawacmin kulanka Newcastle ee la ciyaarayaan Arsenal ee FA Cup-ka maadaama kulamadan blank game week ay ka horeeyaan kulamo toddobaadka Sabtida iyo Axadda la ciyaari doono FA Cup-ka haddii kulankaas ay waxba ku noqonin amaba aan lagu bilaabin oo lagu dhameynin tababaraha wuxuu ka fikiri karaa inuu ku soo bilaabo Martinelli. Sidoo kale waxaa ka mid ah ninka isbedelka cajiibka sameeyay oo 2 caawin oo isku xigtana sameeyay Smith Rowe. Sidoo kale markii loo barbar dhigo Aubameyang iyo Lacazette Aubameyang xaaladiisa dhinaca weerarka aad bay u liidataa laakiin Lacazette waa isbedel ayaa ka muuqda oo qaab ciyaareedkiisu wanaagsan yahay waana nin maadaama haysatid fursad aad ku isticmaali kartid wildcard-ka inkastoo aan ku talinayn in wildcard aad isticmaashid oo jibaarada ka mid yahay jibaarada wildcard-ka ama bench boost haddii aad haysatid wax ka badan maadaama aadan haysan karin hal transfer ama haddii aad badbaasatay kii ka horreeyay transfergana ay haysan karin 2 ka badan haddii wildcard aad isticmaashidna ay kugu tahay in culays kaaga imaado hadhow culeysyada haddii ay intaan ka bataan haddii aad haysatid marka Lacazette waa keensan kartaa. Dhinaca kale Crystal Palace oo kale Arsenal daafaceeda ayada lafteeda waxaa laga yaabaa in gool laga dhaliyo u badan tahay maadaama ciyaaryahanada Zaha oo kale weerarkiisa uu aad u kulul yahay oo toddobaadyadii lasoo dhaafayna qaab ciyaareedkiisa ama dhibco badan keenay Zaha penalty oo kale keeni karo. Dhinacaasna iyo waxaa jira ninka lagu magacaabo Eze oo asna kulamadii hadda ugu dambeeyay oo kale weerarkiisuna aad u kulul yahay dhibcana keeni kara marka meelahaasna waa lagu tashan karaa.